xildhibaanada aqalka odayaasha ee waddankaasi Ingiriiska ee loo yaqaan House of Lords ayaa kulan su'aalo weydiina waxa ay la yeesheen ergeyga gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska ee dhinaca ka hortagga tacadiyada jinsiga sidoo kalena ah wasiiru dawlaha qaabilsan dhinaca bariga dhexe waqooyiga Afrika koonfurta Asia iyo qaramada midoobay iyo ururka barwaaqa sooranka ninka lagu magacaabo Lord Tariq Ahmed xildhibaanada aqalka odayaasha ayaa waxay weydiiyeen suuragalnimada Ingiriisku uu ku horkici karo ama uu hormuud ka noqon karo aqoonsi ay hesho Somaliland waxaana ay weydiiyeen in Somaliland uu Ingiriisku u horseedi karo dhabaha aqoonsiga isla markaasina soo jeedinta aqoonsigeeda uu geyn karo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa maadaama Ingiriisku yahay dawlad madax bannaan oo awooddaasi leh oo samayn karta soo jeedin qaabkaasi oo kale u dhigan. If I remember correctly, suggested that it's for the UN to determine this. But nevertheless, I think a lead from the UK in suggesting that Somaliland be recognized in its own right. xildhibaanadu waxay ku doodeen in Somaliland iyo Soomaaliya ay wadaagaan ereyga Soomaali oo kaliya balse ay u muuqato inay jiritaan ahaan kala duwan yihiin. The SOM designation. So I think Somaliland being its own entity would probably be beneficial all round. Would the minister agree? xildhibaanada aqalka loo yaqaan House of Lords ayaa waxa sidoo kale ay ka hadleen dhanka horumarka iyo garaangalka Ingiriisku uu ku leeyahay geeska Afrika taasi oo ay soo jiidatay dekada Berbera oo ku taala meel istiraatiiji ah farsamo horumarineedna ay ka muuqato maadaama Djibouti ay martigelisay quwadaha kale ee Mareykanka iyo Faransiiska iyadoo laga tagaynin saameynta dhanka Shiinaha ka imanaysa oo iyaduna saldhigatay waddanka Djibouti sidaas awgeedna dekada Berbera ay tahay goob markaasi ku haboon in Ingiriisku uu markaasi ka soo muuqdo xiriir dhanka horumarinta ah oo uu la yeesho Somaliland taasina ay tahay in Ingiriiska ay dantoodu ku jirto inay wax ku yeeshaan oo ay isticmaalaan dekada Berbera oo dhanka horumarka maadaama Faransiiska Mareykanka iyo dawladaha kaleba ay si aad u degan yihiin waddanka Djibouti. Whilst Djibouti is a haven for French and US assets. What consideration has there been to extending outreach and a winning combination of the two, utilising the port of Berbera in Somaliland? Is the minister considering setting about discussions with the Chinese interest to set out a beneficial rule book as to how we can avail ourselves of that port for our own affairs as well? Lord Ahmed Tariq ayaa arrimahaasi oo dhan ka garaabay waxaana uu sheegay in Ingiriiska u bannaan tahay meelo kala duwan oo Somaliland ay markaasi wax la qaban karaan balse si toos ah uga hadal waxa ay la tahay in la qaadi karo tallaabooyina ee ku saabsan amuuraha aqoonsiga sida xildhibaanadu ay u weydiiyeen. macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 24 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada Keenan. haddaba haddii aad haysato $, garaac xidig 885 afargees. haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland, garaac xidig 225 afargees. kadib dooro 0 oo xidhmada casriga ah ee Keenan. waxa kale oo prepaid-ka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadibna dooranaya number 1 Keenan. macmiil waad ku guulaysatay xidhmada Keenan oo ku shaqaynaysa muddo 24 saacadood ah.